الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى موضوع أن كهذا الدون سيد ولالكين وشيء وحويه فقه إسلامي هي مرتبته سكلا قديسا هي قفك مسلم سيد اللوغة بهاي هي إنه أكل هرمريه sida ay u kala muhiimsan yihiin diintiisa haba amalka uu sameeyo saad la socotaan walaalayaal nusuusta kitaabka iyo sunnaduba waxay isku waafaqeen ahmiyada ay leedahay al-fiqh al-islami ama ahmiyada uu leeyahay fiqhigu oo nabigu uu yiri sallallahu alayhi wa sallam hadith sahiha oo ka sugnaaday man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din qofki ilaahay uu khayr la doono إلهي سبحانه وتعالى وحا فهنسياه دينت أيو فهنسياه فقه نسدي سوا مركي لقيحة اللغة عربية معنيه سواحوي الفهم وي إن وقفك وح فهمه أو سيسح أو فهمه أيا وح فقه لير هذا مركا نبي صلى الله عليه وسلم حديث كوش يجي قفك إلهي سبحانه وتعالى أو خير لما جو إن دينت فهنسيه نبيغو ما uusan dhihin sallallahu alayhi wasallam inuu diinta xifdisiyo laakiin waxa uu yiri in uu diinta fahansiyo sallallahu alayhi wasallam saaso kale waxa nusuus ku sugnaatay in fiqhigu uu ka gadisan yahay xifdiga oo farqi uu ku jiro in qofku uu wax xifdiyo iyo in qofku uu waxa uu fahmo xaqiiqadiisa iyo yoolka laga leeyahay uu fahmo nabigu sallallahu alayhi wasallam حديث كلا أو كسبنا هذا وبخاري مسلم أي وريين أي وحي صلى الله عليه وسلم يسوى أو تصالى بحنية مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير وحوي النبي صلى الله عليه وسلم هنون كان إلهي إلى الصدري وحو لمدي هاي روب آت أبضا للك داي أصاب أرضا للك داي فكان منها للك وحا كمدها وكداي نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشبة دولكي روبك كدا أي وحا كميدها دول صافئة أو مركا صوب بحسي داق يعوس وناك صوب بحسي الكثير أو اللي بآدو بضن وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وحا كميدها دول أدق أو دقان دقاه oo biyihii iyadu waxa ma soo saarin laakiin biyihii markay celisayna dadkii baa ka cabay oo ka dhaansaday oo ka waraabsaday waxa kale dhulkii kamid ah dhul uu roobkii ku daay wa asaabat minha taa'ifatan ukhra inma hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an fadhalika mathalu man faqiha fi dinillahi wa nafa'ahu Allahu ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ساس النبي صلى الله عليه وسلم وحا يرهب كاس وحا لمديه قفكي صدح قيبود وددك النبي وشيغي صلى الله عليه وسلم صدح قيبود بو قيبيي قالوا وقالوا قالوا هنونك إلهي نبي محمد الله صدري صلى الله عليه وسلم ما بأقبلين بمنا قادا وقالولك قيعانك وإحنا أنك صوبحين بينا أن علم بيلمدين وإحنا كما صوبحان بينا معلسون لكن ذاتك مسلمين تاو النبي ولا بقوا قيب شيء صلى الله عليه وسلم قار لمد قالولك مركو روبك كود أي أو كصوبحين نق يعوس يماركتي ماركتي حولها يعونان ولا فائدته قار إذا أي سمح بك صوبحين لكن بيه علسي iyadana marka waxa looga faa'iideystay waa laga cad nabigu marka waxa uu qaybta hore waxa uu ku miisaaliyay dadka inta diinta bartay fahmayna oo fuqahada al-fuqaha culimadu waxay dhaheen xadiidka markay fasireen qaybta hore ee soo saartay naqa markii roobku ku daay waa fuqahada weeyay dhaheen oo hanuunkii ayay qaateen iyo cilmigi fa anbatat al-kala wal ushba al-kathir marka waa علماء فقهاء الدين تكون عمل فشه علما وعملا ما ركتي أو كاستنباط أحكامته إيه وحيالها لو بهاي هاي قيب طلبات أو بيه عرسينا وعدتك دين تنتحف ذي
laga sii qaatay oo maaragtay laga sii qaatay weeye ولذلك ابو النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث وحكو يري أنس وري ابن مالك رضي الله تعالى عنه نبي وحي نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه حديث كاسنا وحوري أحمد وأنا حديث صحيحة نبي وحي صلى الله عليه وسلم إلهي هنوريو قف مقلي حديث كيغا مقلي oo markaa xifdiyay oo markaa gaarsiiyay dadkii gaarsiiyay waxa laga yaabaa qof isagu wax xifdiyay in uu gaarsiiyo qof ka fahmi badan oo ka faqiihsan oo markaa wixii uu xifdiyay oo uu gaarsiiyay isagu ka soo istinbaado ahkaam ka soo istinbaado ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه waxa laga yaabaa qof isagu xambaarsan fiqhi uu xambaarsan yahay in uu gaarsiiyo man huwa afqahu minhu cid ka sii fahmi badan in uu gaarsiiyo marka halkaas waxaad ka garanaysaa in nusuusta la xifdiyo kaliya inaysan la mid ahayn qofkii inta xifdiya marka inta fahma ka istinbaada ahkaamta ay xambaarsan tahay nusuustaas ay xambaarsan tahay in uu farqi weyn uu ku jiro ayaad halkaa ka fahmaysaa maarag ولذلك بي صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم waxay u qaybsameen qaar la yiraahdo al-fuqaha ama asxaab al-futya oo iyagu dadka u fatwoon jiray iyo qaar aha xafada oo xadiidka iyo quraanka xifdiyay iyo qaar labadaba kulmiyay sida Aisha radhiyallahu ta'ala anha nabiguna sallallahu alayhi wasallam markuu u ducaynayay wiilkii ay ilma adeerka ahaayeen aqliga badna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu nabigu uguma ducayn ilaahu xifdigiisa badi wuxuu ugu duceeyay sallallahu alayhi wasallam Allahumma faqihhu fi ad-din إله دين تفهنسي بالنبي صلى الله عليه وسلم إله دين تفهنسي دين كفقه كيس يفهم كيس إله يو وكالمه النبي ودعي صلى الله عليه وسلم هل كواحد كفهم يسا أهمية دا إلى هاي إن قفك وفهم النصوص تا أي سنة هاي نقرتك إن لحفظية كريه نعم إن لحفظية نصوص تا كتاب كي سنة وشيء وناكسن أو مطلوب لكن وحا كسي مهم سن إن قفك وفهم قرتك لغلي هاي آيادان يا حديث كان إن أو كاستنباط كرا أحكام كاس أيا مهم أيضنا صحابة نسان شيخني ساس أيا أهاية قار فتوين كأيجا لو سؤاله أو لورنتي راي فقهاء الصحابة أيا شري دين الإسلام كنا مركز آخر القرآن كخاصة واحد كوارك إلهي سبحانه وتعالى أوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها والقرآن كم يزن كتدبرين أو كاستنباط أحكامته ما حي أمريان مرور الكرام ما قلوب تودا قافلة علماء مركب فسيريين يستنبطونه بيكفسين سي ابن كثير أو كلام مركب فسيري آيات داس أفلا يتدبرون القرآن ما يزن كاستنباط القرآن سعي وصو صاران معاني كل حجرة القرآن سعي وصو صاران ولذلك بيوحى هاي مركي صحابتي قرون المفضلة تابعين تابع التابعين عصر أئمة الهدى سي إمام أبو حنيفة شافعي مالك أحمد بن حنبل غيرهم وحي أهايين كوا فهمه قرآنك أحكامته كتيرته وحد أركز إمام الشافعي أوله حالي أوله وحن كوع العليني آيات وحن كسو صاري انتاس أو بقول أو ماركتي مسألة أيان كسو صاري سوء كوع العليني آيات داس هبا مركو أخريه ومرو معنا عصب كسو صاريا مركو أخريه معنا عصب أيو كسو صاريا مركا هالكاسن واحد كفهميسا أهمية أيلادا هاي إن قفك وفهم نصوص كتابك إيه سنة مركا موضوع محاضرة waxa ay ku saabsan tahay fahankaas fiqhiga waxa uu keenaya qofku inuu ogaado acmaashu ilaahay uu noo diray subhanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam sida loo kala hormarinayo oo ay u kala sareeyaan oo ay midba midka kale uu awla uga yahay oo tafaadul a'maal waxa laga yaabaa qofku inuu mashquul ku yahay amal wanaagsan laakiin uu ka mashquulo amal kasi wanaagsan ayaa laga yaabaa waxa laga yaabaa qofku inuu mashquul ku yahay amal raajixa لكن عمل كسي أرجحسن أو مشغول كي وكي هاي بالغيابة سيدا أسوأ كلا قفك وحوغانيا وحيالها منهيات كا سيدا يوسي كلا درينيهين وحاكلو يدنو مهمة
oo baabkan qofku inuu fahmo ay muhiim aad ugu tahay qofka markii laba khayr ay soo wajahaan inuu og yahay labadan khayr keeba khayru alkhayrayn labada khayr keeba si khayr badan si uu fuliyo kan khayrka badan ama qofku waxa laga yaabaa mararka qaarkood inuu laba shar uu huri waayo laba shar oo waxa weeye laba daran kala doora ay noqoto markaas waxa loo baahan yahay qofku baabkan inuu wax ka og yahay oo sharu labada shar kooda sharka badan suu u fogeeyo labada shar kan sharka yarna ilaan labadoodu ma hureysida uu qaato taasna aad bay muhiim u tahay qofka muslimka hadduu marka baabkan baabu tafaadul al-a'mal waxa la yiraahdo ama fiqhu al-awlawiyat la yiraahdo hadduu jaahil ka yahay waxa ku dhacaysa maanta oo dhan qofkii inuu waqtigiisa ku dhumiyo amal laga ajar badan yahay ama laga fadli badan yahay ama waxa laga yaabaa in isagoo oo laba shay oo kala daran mid fudud qaadan lahaa inuu kii dhibta badnaa uu saaran yahay oo ku marmarsiyoodo hada waa lama huraan marka qofka halkaas waxa ka dhumaya tawaasunka aqliga iyo fiqhiga ayaa ka dhumaya عكسه أما عكسه مقصود الشرعي إنه وكم مشغول سنة هاي أينا أبضنتها قفكو ونقبه إنه يحسن الصنعة إنه وناك سمينا يو لكن وكم مشغول سنة هاي واحد لقى فاضل سنة هاي ولا جاه بوني هاي القرآن كما كآخر دين واحد كو أركيسا القرآن كي السنة وإنه شيء يعني أعماشه إن أي كل فضل بدين يقول لوضو بجائز يهين لكن أي كل فضل بدين هل آيات أم لو آيات هل حديث بان تصالح سقادنا إلهي وحده سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدقة بير الله سبحانه وتعالى هدي آد موجسان مركب بحينيسان ووناك وخير ونعمة وشيء جائز وناكسا وإن تخفوها لكن هدي آقرسان وتؤتوها الفقراء أو فقراء السيسان إنكم عدنا أن تصن وإلهي وحي فهو خير لكم يدا خير لبضيب وخير أفيرسو صدقاتنا بحسد يدا لقوتش يدا أدتك سيسد وخير وشيء خير لكن وحا كسي خير بدن إن أد قريسيده هوس أو قلابت ولذلك أبو النبي وحي صلى الله عليه وسلم مركو شيء حديث كلا تدوض إلهي ومارك تهاريه هركا عرش جيسا 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله تدوّلت قول النبي وشيء وحى كمدها ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه في النبي صلى الله عليه وسلم تدوّل إلهي سبحانه وتعالى وكبد باديو شاوريرك يفزع يمارك مرقدة مالنت يوم القيامة دتك قرحة اللي سود وينيو وحى كمدها قف صدقada uu bixinayay ikhlaaskeeda soo ikhlaas u ahaa iyo istustus uga ilaalinayay waxa weeye labadiisa gacmood midigtiyo bidixda waxa ay gacanta bidixdu ma oga waxa midigtu bixinayso yaani uu qariya hoos waa kinaaya ala almubalaqa ayaa la yiraahdaa qofka sida uusan cidna uusan u tusin waxa uu bixinayo ila laga mathalay oo tusaale uu nabiga soo qaatay gacantiisa bidixda ma oga waxa midigtiisu ay bixinayso marka ilaahay halkan wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala in tubdu sadaqati فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم هدي آد صدقة آد بحسان يضو موقتو ليدين كذا وشيء وناكسن بل علماء واحد يعني مرة قاركود واحد لقى يابا هدي قفكو أولاد شيء ضدكو هكاجد ضيدين إن يفضل بدته إن قفكو ضدك أولاد شيء أو بحيو مرة هالك واحد كو قاني لبع عمله خير لكن كلا خير بدن أنت سوي مثالك واحد سوق هذا سياسة إلهي وحي سبحانه وتعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله موحد ليس بالله سبحانه وتعالى حجاجته الله ورابيه يبيت الحرام كالله عمره إن أي لمتهاي إلهي شدكي سؤال جهاده أو نف يما الله من أي لمتهاي يقول أنت مياد مودين في ربل والله عمله خيره إن دتك حجاجته لقوديو الله ورابيو بيتك إلهنا لعمره إلهي بيريد سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إن بيتك إلهي لعمره أو دتك حجاجته وحلصيو أو الله كالمي وخير لكن أمر ديغانتو markii muslimiinta la qaato dhulkooda
ay jihaadu fii sabiili llahi subxaana wa tacaala qofkii maalkiisa naftiisa u bixiyey uma dhiganto marka halkaana waxaa la samaynayaa muqaarana ama isbarbardhig ayaa la samaynayaa laba camaloo khayra laakiin mid khayr badan yahay baa halkaas ka arkaysaa marka ahamiyadda uu mawduucan uu leeyahay waxa weeye saan horeba usoo sheegnay qofku inuu ogaado laba camal kan khayrka badan si uusan ugu mashquulin mid laga khayr badan yahay suusan ugu mashquulin waxa uu leeyahay ibn aljawsi shaytaanku min madaakhili ashaytaan lilinsaan waxaa ka mid ah shaytaanku si aad og tihiin waxa weeye waa khabiir weeye wuxuu khabiir ku yahay oo takhasus badan iyo khibro aad iyo aad u badan maanta waa ogtiin qofka shaqo marka la siinaya imse experience uu leeyahay shaqo ayaa la dhahaa ninkan ka warran ilaa iyo aadam ilaahay abuuray waxa uu yaqaanay dadka sida loo baadiyeeyo sida dadka loo dhumiyo marka wuxuu haystaa khibro aad iyo aad waasic u ah sida dadka loo dhumiyo waxa uu yidhi shiikhaas shaytaanku qofka waa u imaanaya wuxuu dhahayaa مثلا قف دلينيرا قف عافماد قبا بو إيمانيا أو عبادة كو مشغولسن أو خير كو مشغولسن markaasuu dhahayaa war maxaa ku mashquuliyey nin dhallinyar baa tahay qof dumaroo dhallinyaraa tahay weli waqti badan baa haysataa hadhow baad toobad keenaysaa hadhow baad xajinaysaa iska daa maaragtay arrimahaaga iska labo iyo maaragtay waxyaalahaaga maaragtay buuqa iska labo ayuu ku dhahayaa maaragtay markaas ayuu qofkii sawtkii xoogaa waa gaabtay nimanka techniciankaa way u taallaa marka marka wuxuu dhahayaa shaytaanku sida uu bini aadamka u soo galo qofkaas markuu saa ku yiraahdo waxa laga yaabaa qofkaas inuu yahay qof iimaan leh oo uu yiraahdo a'uudu billahi minash shaytaani rajiim iga tag ayuha laciin oo dhag jalaq u siin waayo oo iimaankiisa ayaa wuxuu qawi ka noqonayaa in uu dhumiyo saa uga tagi mayo waxa uu ka soo galayaa dhanka kale uu ka soo galayaa wuxuu dhahayaa kan batriga ka dhamaaday sheekh batriga waxa uu dhahayaa shaytaanku marka uu qofka marka hore cibaadada ka joojin waayo qofka iimaankiisa haddii difaaco qof manaaca leh weeye oo maaragtay iimaankiisu qawi yahay dhan kale ka soo galaya wuxuu dhahayaa war maxaad tukanaysaa uu leeyahay maxaad soomaysaa cibaadadaadu waa yar tahay boobsii buu leeyahay habeenkii oo dhan istaag maalkaaga bixi maaragtay waalidkaa xiriirina masjidka aad jihaadka aad xagga ku bood ilaahayna wuxuu yidhi ilaahay ma daalo jeer aa idinku ka daashaan diinta islaamku waa diin wasat ah laa ifraada walaa tafriid دين معتدل دين وسط إلهي وحي سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسط marka hadii uu dhankii hore uu ka waayay uga tagi maye wuxuu isku dayaa inuu taraarixiyo oo quluw uu ku sameeyo oo uu ka dhigo extremism oo maaragtay xadka dhaafay uu ka dhigo ilaa qofka marka dambe intuu daala diinta isaga tago in badanna waa la arkay dadkaas waxa laga yaabaa haddana buu yidhi sheekhaas qofkaas inuu iimaankiisu difaaciliyo acuudu billahi min ashaytaani arajiim war naga tag ana taraarinin waxa weeye ilaahay diintiisu waa diin muctadila nebiguna wuxuu yidhi subxaana wa tacaala diinta qof iskuma adkeeyo qof iskuma dhigo ilaa qalaba maaragtay inuu ka cawdu bilaysto haddana kaa tegi mayo buu yidhi wuxuu isku dayayaa dhan walba markuu kaa soo galo inuu marka dambe kugu mashquuliyo camal faatil ah bal u fiirso intaan dambaa mawduuceena khusaysa waxa laga yaabaa inuu kugu mashquuliyo camal faatil ah laakiin uu kaa mashquuliyo camal afdal ah afdal camal ka sii wanaagsan ka khayr badan ka ajar badan buu kaa mashquulinaya wuxuu kugu mashquulinaya camal wanaagsan ajar aa ka helaysid laakiin 10% iyo 5% aa ka helaysid kii boqolkiiba boqol ajar aa ka helaysana uu kaa mashquulinaya marka qofku inuu baabkaan ogaado baabu tafaaduli al-a'maal camalku sida uu kala fadli badan yahay aad ayay muhiim u tahay marka halkaas aayadaas iyo xadiidkaasna waxa ay noo sheegeen ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay camalku in uu kala fadli badan yahay saasoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay laylatu lqadri khayru min alfi shahr hal laylo ayaa waxay ka fadli badan tahay waxaad ogtihiin ramadaanka oo dhan inuu ajar badan yahay habeen kastoo ramadaan ka mid ah waa ajar badan tahay waa fadli badan tahay haddana hal laylo ramadaan ka mid ah baa 29 habeen oo kale iyo habeenada kale soo harayba ka fadli badan ليلة القدر خير من ألف شهر ساسو كل إلهي وحو نو شيغي
dunuubtu inay iyaduna kala waaweyn yihiin oo darajaad ay yihiin taasna waxay ku tusaysaa haddii laba shar qofku uu huri waayo inuu kan khafiifkaa qaato ee dembigiisu uu yar yahay haddii qofka laba shar uu huri waayo ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariima تجتنبوا كبائر ما هناك كبائر وصغائر إذن ذنوبتي وحا لو قيب شيء كبائر ووين هي صغائر يا لو قيب شيء هي مندوب وحيالها محرمات كان وحي قيب سواء محرم إيوه مكروهات ساس بوكل الدرجة ريان مركا قفكو إنو كلا أوغيهي واجب يا مندوب محالي هذا محرم يا مكروه محالي هذا مباح محالي هذا إذن وآد بباب كان أيقو تعلق ذا مهمنا أيوتهاي qofka muslimkaani inuu ogaado si uu mid walba uu siiyo xaqiisa uu siiyo mana banaana maantana in badan baad ku arkaysaa qof waxaad arkaysaa shay manduub ah oo mustahab ama mashquul ku ah shay waajibana ka tagay ama shay waxa uu ku mashquul ku yahay fardu kifaaya ah oo dadka qaarkood haddii ay u qumaan ay ka dhacayso buu mashquul ku yahay wuxuuna uu ka tagay fardu cayn shay ah oo ay waajib ku tahay isaga in looga baahan yahay waxaad arkaysaa dhalinyaro waalidkood oo u baahan oo waayeela oo shayba ka cararaya oo leh ardu fulaan baa waxa ka jira jihaad maalan oo laga yaabo dad muslimiin oo u qumaya inay halka ay joogaan oo isagu inuu laga yaabo dhib ku noqdo iyo culays ku noqdo laga yaabo waalidkiisa u baahan walidaalka waxa arkaysaa sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadii oo ciidan u baahan iyo hub u baahan oo cutaad u baahan oo jihaad u socda oo cadawga ay socdaan malaayiin badan uu ka badan yahay baa nabiga sallallahu alayhi wasallam nin baa u yimid oo yiri yaa rasuulallah inaan kula jihaadan rabaa markaas uu yiri waalidka ma nool yahay waalidka waa yeela ka soo tagay waalidka ku jihaad biyo ord noqo ay raaci maysid waalidka orod raac biyo nabiga sallallahu alayhi wasallam oo kaalmee marka qofku waxa laga yaabaa inuu mashquul ku yahay shay manduub ah manduub macnaheedu waxa weeye shay mustahab ah oo ka mashquulo shay waajib ah ama waajibaadka laftigooda hada kala sareeyo waajib fardu kifaayo mashquul ku yahay fardu ayna in uu ka mashquula la arkaa baabkaas isaguna aad buu muhiim ugu yahay arinkaas in qofka muslimka siiba dhalinyarada iyo dadka ducaada ay aad u ogaadaan imaam shaatibi imaam la yiraahdo oo aymada waaweyn ee fiqhu maqaasid ash-shariica aad uga hadla kamid ah kitaab weyn oo caan ah oo al-muwaafaqaat la yiraahdana leh waxa uu yiri الواجبات لا تستقر واجبات إلا إذا لم يسوى بينها وبين غيرها من الأحكام فلا تترك ولا يسامح في تركها البتة كما أن المحرمات لا تستقر كذلك إلا إذا لم يسوى بينهما أو بينها وبين غيرها من الأحكام فلا تفعل ولا يسامح في فعلها يعني واجباتك يا محرماتك إن أي كلا تكتكسيهين أيها الكاكوشيغيا مصالح الشرعية مركا لقيبينيو المصالح الشرعية مركا لقيبينيو كتبتا مقاصد الشريعة كهذا كتبتا أصول فقهية وحي قيبيان ضروريات هي حاجيات وحي قيبيان تحسينيات ضروريات وحوي وحلقة ومارمانك دينة إسلام كنا أي سنتوسين إن وشرائع الإسلام كنا أي وذا حفظي سيد الدين سيد النفط سيد عقلك سيد معركة عرضك وحيالها نوع عاصو كلا وحالي هذا سيد مالك وحاليها ضروريات إن لما تابتان وحيالها وحاليها حاجيات أو ضروريات إذا وأكتهين قفك فمن الضر وإذا القرآن كأي كتشرته قفك هدي لقى مارمان أيون نقطة حتى أو عرمها لقى مارمان نقطة وح حرامتها لو بنين يا قفك إن أو استعماله هدي ضروريات نفتي هدي خطر جلسة نفتي كبحثه بختي عمبالي رمال قفكي هدي مارك نفتي سيلديلا يولغو إكراهه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وحقفك حتى كلمة قالها بوديه كرا قال بنا بوديه كرا دي نفتي سلغو خصبه لأنه وحوي ضروريات كي مركي قفك خطر أي قشو وحلو بنية وحيالها مارك حارانتها ولو بنية أما وحيالها حاجياتك وحيالها قفك هدي uusan samayn ama uu waayo dib ay soo gaaraysa laakiin nafa ay soo uga baxay taxsiiniyaadkuna waxyaalaha iska qurqurxinta oo maaragtay weeye wax arimaha noocaas marka culimadu islaamku saas ayay u kala dhigdhigeen arimaha fiqhu
maraatib al-acmaal qofka muslimkaana inuu saa u ogaado ayaa loo baahan yahay maxaa dhacaya marka qofka haddii uusan aqoon fiqiga kan waxaan kusoo khulaasaynaynaa maxaa dhacaya haddii qofku baabkan uusan aqoon waxa dhacaya inuu ajar badan waayo saan horeba usoo sheegnay oo qofka jaahilka ah baabkan waxaa laga yaabaa inuu mashquul ku yahay camal laga ajar badan yahay inuu mashquul ku yahay haddii xataa uusan maaragtay shar uusan mashquul ku ahayn camal laga ajar badan yahay oo laga yaabo inuu booskiisa gelin lahaa camal aad iyo aad uga ajar badan inuu gelin lahaa waxaa laga yaabaa qofkii inuu ajar badan iska dhumiyo baa laga yaabaa nebigu sala allahu calayh wasalam bal qofku waxaa laga yaabaa inuu camal wanaagsan samaynayo uuna maaragtay camal kale oo camalkiisa wanaagsanaayo dhan burburinayna uu sameeyo nebiga waxaa loo sheegay waxaa la yidhi inna fulaana haweenta heble la yidhaahdo baa loo sheegay inay salaadeedu badan tahay soomkeeduna badan yahay sadaqadeeduna ay badan tahay kayra annaha tu'dii jiiraanaha baa layidhi bilisaaniha jiiraankeeda ayay carabkeeda ku dhibtaa oo way xamataa oo way isku dirtaa waxbay ka sheegtaa fiiri way salaad badan tahay way soom badan tahay way zaka badan tahay laakiin jaarkeeda ayay carabkeeda ku dhibtaa baa layidhi markaasuu nebigu wuxuu hiya fi nnaar hiya fi nnaar naartay gelaysaa qofta saasa soomkeeda iyo sadaqadeeda iyo maaragtay waxba ma tarayaan qofka laanna qofka muslimkaa waa man salima almuslimuun min lisaanihi wa yadihi qofka muslimkaa waa qofka dadka muslimiinta ay ka nabadgaraan carabkiisa iyo gacantiisa maanta waxaa arkaysaa dad badan oo mustaqiimiin isku qaba oo isku qaba inay safka hore yihiin oo salaad inay badan tukanayaan laga yaabo xajka aadaan laga yaabo muslimiintii ayaa afkoodii ka ammaan looga laayay bal intay soo dhaafeen dadkii caamadaha muslimiintaha bay culummadii cunahayaan culummadii islaamka ee diinta iyo dacwada intaa dadka soo gaarsiinayay ayaa waxaa arkaysaa dhallinyaro yaryar wax ka sheegaysa oo le kaas waa kaas sheekhaas waa sidaas oo waxaan aragnay oo ilaahay uuna tusay mid farta la barayay sida alifka loo qoro alif ba la qoro oo fatwoonaya dadka u fatwoonaya oo caalim intaa dadka diinta islaamka u soo sheegayay naqdinaya oo waxaadna ogaataan mawduucan nuqdadaana waa nuqdo aad runtii muhiim u ah haddaad aragtaan qof culummada islaamka caayaya ama wax ka sheegaya si indirect ah ayuu diinta islaamka u duraya wax u sheegaya laanno dadku diinta waxay ka qaataan culummada nebiguna wuxuu yidhi culummadu waa warasatu alambiyaa kuwii ambiyadii nebi dembe oo nebi maxamed gadaashiis la soo diri doona ma jiro qofka caalimka ah ee dadka diinta u sheegaya durahaya macnaheedu waxa weeye qofkaas inuu dadka ku diro oo dadku ay ka cararaan haddii qofkii caalimkaa laga cararanayo diintii waxaa laga qaadanaya sidii nebigu uu sheegay dad dullaal ah oo iyaguna dhunsan dadkana dhuminaya marka qofka culummada wax ka sheegaya culummada hilibkooduna waa sun bay dhaheen culummadu badanaana ilaahay subxaanahu wa tacaala caadada looga bartay waxaa ka mid ah dadka culummada wax ka sheega ilaahay adduunka ayuu ciqaabkooda u soo dedejiyaa adduunka ayaa lagu soo hormariyaa ciqaabkooda marka waxay ka mid tahay waxyaalaha hadda aadka u badan siba fii awsaati adalaba iyo dadka dhallinyarada iyo in ay culummada wax ka sheegaan ama sheekh hebel baa saasa ama sheekh hebel baa saasa arrinkaasna waa arrin runtii loo baahan yahay nebigu wuxuu yidhi islaantaas waxa uu yidhi soonka badnayd oo salaada badnayd oo sadaqada badnayd hiya fi naar buu yidhi riwaayad kalena waxay ahayd waxaa la yidhi yaa rasuulallah haweenta heble la yidhaahdo haween kale baa nebiga loo sheegay waxaa la yidhi min qilati siyaamiha wa sadaqatiha wa salaatiha laga sheegay qoftii heble la yidhaahdo soonkeedu waa yar yahay salaadeeduna waa yar tahay baa la yidhi wa innaha tatasaddaqu bilathwaari min aqidka waxay dadka masaakiintaaba caanaha la angejiyey ku sadaqaysataa walaa tu'dii jiiraanaha jiiraankeedana bilisaaniha carabkeeda kuma dhibto qaala nebigu wuxuu yidhi hiya fi ljanna buu yidhi hiya fi ljanna marka fiiri tafaadul acmaal waxaa ka mid a soom badan iyo salaad badan keliya maaha inaad jawaarixdaada ilaalisid carabkaaga waad ogtay nebigu yidhi sal allah alay slam xadiid kale yaa ii damaano qaadaya laba xubnood buu yidhi nebigu sala allah alay wasalam xubinta labadiisa daan ku jirta oo carabkaa iyo xubinta labadiisa boodiyood ku jirta oo ah xubinta galmada admanu lahu aljanna xadiid saxiixa wey labadaa xubnood qofkii ii damaano qaada jannaan u damaano qaadayaa buu nebigu sala allahu calayh wasalam dad badan waxaa laga yaabaa in laga nabadgalo xubintooda galmada laakiin maanta waxaa dadkii laga nabadgeli la'yahay carabkoodii haddii xataa gacantii iyo qorigii iyo hubkii la ridayay laga nabadgalay in badan dadkii miday xantaan iyo miday caayaan iyo miday wax ka sheegaan ayay u bateen
موضوع وسوق قابلنا إن شاء الله تعالى موضوع مركا هدي قف وجاهل كوي هاي مشكلة أقوين أو كذا لا تنسي وضدك معركتي طلاب العلم جي ضدك دعوة يفقه عن آتك وفهمين وحا مرر بدن دعوة إنه سوء فهم الشريعة قف وكدعو قف كادوس قرنا فقه الأولويات أما سيدا فقه وكله الرأيو وحا لقى يابا إن حتى دعوة الدين تمركو قارسيني قفك مال حنتو قبل أبو وقفك فتنكم نقضوا وقفك دينتي وكسي عرّه أيها لقى يابا marka dhibaatooyinkaas ay leedahay qofka wacyiga qiyaabo maaragtay xis alawlawiyat siiba dacwada iyo casriga la joogo aad iyo aad bay daruuri u tahay oo muhiim u tahay qofka inuu ogaado intaasan ku soo koobaya insha Allah ta'ala mawduuca wallahu subhanahu wa ta'ala waana mawduuc runtii waasic ah muhaadaro maaragtay nus saacana aysan ku filnayn laakiin insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa fikra caam ah in aad ka qaadateen wallahu subhanahu wa ta'ala